shirkadda bariya galbeed oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca socdaalka ee Somaliland ayaa ku qabatay magaalada Hargeysa habeennimadii xalay ahayd kulankii sanadlaha ahaa ee shirkadaasi ay wada qaadan jireen dhammaan shaqaaleynaha shirkadaasi waxaana goobjoog ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreeya shirkadaasi marti sharaf iyo shaqaalaha ka howlgala shirkadaasi bariya galbeed ee heer gobol ilaa iyo heer degmo ee guud ahaan dalka ibafurka munaasabadana waxaa hadallo ka soo jeediyay maariya ku-xigeenka shirkadaasi Maxamed Abshir Daahir oo ku dheeraaday maraaxilkii kala duwanaa ee shirkadu ay soo martay iyo inuu kulankani yahay sidii ay u ogaan lahaayeen qorshayaashii sanadkii hore aan hirgelin iyo kuwa sanadkani cusub ay doonayaan inay hirgeliyaan waan garan karaa waan ogahay inayna mar qura halkan bariya galbeed isugu iman kareenin waxaan qiyaasayaa inayna malaha qayb ka nahay haddaynan kaba yareen inta halkan timid way shaqadeena suurta gelinaynin baynu mar qura meel isugu nimaadno oo shaqadeena socdaal baynu nahay waynu soconaa marka mar qoris ma wada taagi karaynaa marka inta ka soo qayb gashay inta kale aan ka soo qayb gelinay waqtigu soo mixi waayay shaqada awgeed dhamaantiin aad baan idinku mahadcelinayaa soo salaamaya shirkan sida ogtiin waa shir sanadlaah oo sanad kasta aynu qabanno dabayaaqada bisha December si ujeedadii aynu u qabanayna ay noqoto sanadka aynu soo shaqaynaynay oo hawl badan iyo juhdi badan aynu gelinay goolkii ama hadafkii aynu lahayn iyo shaqada aynu soo qabanay maxay aynu gaadhnay maxay inoo qabsoomin maxay inoogu qabsoomi waayeen runtii aynaynu wax iska nidhaahno sidoo kale in aynu waxa weeyaan sanad dhanba shaqaaluhu waxa laga yaabaa inay isku wada iman isbarasho iyo isdhexgal shaqaalaha cusub ee mar walba ku soo biiriya shirkadda iyo shaqaalihii hore ee fursad u noqoto oo ay isbartaan oo isdhexgal u yimaado inay fursad u noqoto maamulka shirkadda waxa iyaduna halkaasi ka hadashay Marwe Siciide Axmed Askar oo ka socotay shirkadda socdaalka ee Askar iyo Maxamed Daahir Khadar oo ka socday shirkadda daabacadda ee Colorsum oo si isku mid ah u bogaadiyay waxqabadka shirkaddan iyo dadaalka ay gelisay bulshadeeda Cabdilaahi wuxuu yiraahday geel jire geelana waa wada jira waana kala jira halkan waxa ii muuqataa inaan wada jirno kala ma jirayna waayo sirtii iyo tababarkii way idila qaybsanaysaan way tusaysaan dad si ay isugu xidhan tihiin iyo sidii meelihii wax laga hagaajin lahaa marka geel waan wada jiraynaa oo wada soconnaa kala ma soconno run ahaantii shirkadda bariya galbeed waxaan ku ogahay maamul iyo shaqaale karti badan yaqaano shaqada loo dirtay sida loo guto iyo sida qofka macmiilka ah loola dhaqmo 2020 oo ay hal habeen naga xigo in ay noqon doonto shirkad wax cusub ku soo kordhin doonta gayigan aynu ku noolnahay Somaliland sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta waxa kala duwan ee xafiisyada gobolada iyo degmooyinka oo ka sheekeeyay sida hufan ee shaqadu ay u socoto waa shaqaalooyinii shirkadda bariya galbeed runtii farxad bay noo tahay wada qaybsigan iyo isxogoreysigan taas waxay tilmaam u tahay oo ay calaamad u tahay in shirkadda bariya galbeed ay tahay waxa weeyaan hal jismi Cabdiraxmaan Maxamed Aadan maariyaha guud ee shirkadda socdaalka ee bariya galbeed oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay ujeedada kulankani ay u qabteen iyo in ka shirkadahan ay geed dheer iyo mid gaaban ba ay u korayaan sida ay u raali gelin lahaayeen guud ahaan bulshada iyo inay u sameynayaan waxqabad raali geliya waxaan Ilaahay inooga baryayaa bariya galbeed aynu wada leenahay oo qof kastaaba qalbigiisa ay ugu jirto oo ku xisaabtamo oo ku seexdo oo ku soo tooso anigana maadaama madaxii aan ahay shirkadda waxaad iga fadhiyasaan ma doonayo hebel halkuu imka joogo inuu joogo runtii hebel halka uu imka joogo inuu joogo dooni maayo waxaan doonayaa in hebel halka uu imka joogo uu ka ahaado nin le ama owner waxa ingiriisiga lagu yiraahdo shirkadda qofku inuu wax ku yeesho oo uu lahaado oo qaybta ugu muhiimsan ka ahaado shirkadda halkan uu socona waa halka waxaan u malaynayaa waxa la yiraahdaa bariya galbeed waa hooyada shirkadaha waaqac baynu arki doonaa sanadkeeda waxaan rajaynayaa in iyagoo inaga baranaya waxay halkan noo wada joog doonaan aad iyo aad bad wada mahadsantihiin waxaan rajaynayaa guul
insha allah 2020ga. ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin lagu maamusay qaar ka mid ah shaqaaleynaha shirkadda Bariga Galbeed oo loo aqoonsaday kuwa sanadka 2019 ugu dadaalka badnaa. intii ay munaasabadaasi socotayna waxaa halkaasi lagu soo bandhigay gaadiid cusub oo lagu soo kordhiyay shirkadda Bariga Galbeed sanadkan 2020 ee aynu hadda galnay. maxamed cabdi qalile, telefishinka caalamiga bulsho, Hargeysa.